markaatani waa hooyo inamay dhashay maana alifino hawada kama tirino mala awaal maaha ceelka lana la yiraahdaan joogi hooyana ma dhashay lana bay la joogaan may dhiman ma dheeraan qalbigu yagiibu weydiinaya jawaab bay u weyday qalbiga ay ku sabr ay u sheegto iyadoo ama iska jiifta ama weel iska yar xalanayso qalbigi marba inamadaadi kaasi marba boodaysa warkooda way haysaa dadku way weydiiyaan inamadaadi ma arkin ma oran karto oo taasi way ka xishoonaysaa inay taado ma yimaadaan oo ma arko waxay kaga warantana garan mayso marar badan habeena badan hurdadu yani habeenku waagu wuxuu bariyaa iyadoo aan seexan godkeeda biyo ugu galay waa sodohdii asalka hayda xishood leh dhaqan leh hadalku aanu ku fiicnayn yaa lagu maqlin ku guntan oo ku tuntunsatay meelay u dhaaftaa aanay jirin waqtiga ka warsugayso habeen oo dhan salaatileil iyo duco ayay ku jirtaa mar walba waqti way soo taraayo arintu way sii fogaanaysaa mar walba xanuunku way sii badanayaa su'aashii qalbigu way sii badanaysaa jawaabna ma hayso way sii gaboobaysaa way sii taagdaraynaysaa inamadiina hareeraheedii joogano inay halkay ku maqayeen iyo tumashadooda iyo guryo kale inay samaysteen iyo hablo inay la hadii ay ka dhigo caynkaas iyo caynkaas oo la isla lumayo ayay ogtahay ma hadashaa may habeenkii dambe waxay goosatay inay hadasho hadal bay tidhi kow in aad satisfaction wax leeyahay in qalbigaaga oo aamuso aad inta ku samriso qofku itaalka la markuu waayo hadiya koor maasado ama gabaygu waxyaaba uu leeyahay waa la isku baqtiyaa marka aad caraysan tahay aad seexan weydo hadii aad waxa aad ka seexan weyday hal u haysato hawraar u haysato ama agtaada radio furato nin tirinaya mushkiladaadii ka hadlaya waad seexanaysaa waa relief wax la yiraahdo waa la isku baqtiyaa waa la isku qaboojiyaa tabeedna waxay tiri hadalo aad culaysku ka yaraado koow hadalo ha gaaro hadalkaagu dadka oo mujtamacu waa mujtamac ciyaar maaha baaqaaga iyo dhibtaada waa la gaarsiiyaa iyaga dadka u hiiliya dulmane dadka gaarsii hal isweydiyo dadka inamada laga hadlaya waa kuwama هل يسوسه إيش هلا جوجو احترام كهلو ميان فرت هلا يسوق فيقو تبعد ميلي كلام هوا ما كلام واريا كان هالكينا مرمرة إيش قادس ميان وهاي كهوي دي سيدات هاي هالكافر دي كنت يعنت هاي قبل كان أي تريس ميان وهاي ما أنت سوقيت وكله وهاي فرت هلا يسوق فيقه حتى قبل أي سلالو مين يتقول لي العلادينية tabeedna marka tuu meel galay waxa ku qasban yahay inuu isagoo soconaya inuu yimaado leeyado wariya heesa loo tirinaya gabaya loo tirinaya isaga qudhiisa iyo meeshu ku mashkaladiisan iyo waxaas waa hiilka mujtamac qofku inuu sidaa markuu ugu gudbiyo dadka mashkaladiisa xaq ah si uu hiilo helo waatan arintu tabeedna arintii bay habeenkii dambe oo ka qaatay si hufan oo islaamnimo ku jirto dhaqan suubani ku jiro hooyanimo ku jirto xishood ku jiro sodohnimo ku jirto afkubaadsiya ayay ku halaan hashay ama ay ku calaacashay hoga tusaale waa maasooyinkani waa kuwa leeyada hoga tusaalaha inta siyooday marba si ugu dhigaysay wax ku tusayso ilaa iyadu maaragtay intaas ay aamusnaydo intaas hoosta cabaa soo marto hadalkay oranaysa waa mid culus islaam waxa laga hayaa inay inama badan dhashado midna macna yeelan waayo markii hore waxay u wada bixisay libaax iyo guuleed iyo liibaan iyo sidaas bay u dhaqaaqeenoo maalintii daba fulaxantii ma mooge dariska iyo darisyada iyo islaamaha ficilku ka dhaxeeyo way og yihiin inamadii ay magacyada u bixisay waxba ka jirin maalintii dambe iska badheedo islaam dumarkii meel fadhiyo tuba waxay tiri tib dhalay oo mooye dhalay iska sii muuqda dhalay soo muuqda dhalay madalooti dhalay gobla wiil lagu falaanahay bay tiri baladeeg hadda magacyada ay u bixisay kooy markii dambe runtoodii la baxday waa tib waa mooye iska qof sii muuqda waxba la sii muuqan qof soo socda waxba la soo socon madalooti gura
وقريقان هبيك حرده laga dhex taago wadaanta lagu foorariyay baalku hamoodo qof ayaa madalooti la yiraahdaa gobla wiila lagu falay baan taasina waa mid sheeko hindiya jirto la oranayo inaan baayna jeclaadayo markaasay tiri bal raganimadiisay tijaabinaysayo waxay ku tiri mayaad jeceshahay shardi baan kugu xidhayaa ee ma fulinaysa waxa la waxa digu xidho waa fulinayaa buu yiri hooyada wadnaheeda ii keen bay ku tiri taninkii madalooti intuu iska soo dhaqaaqay ayuu hooyadii u yimi hooyada gabadh baan jeclahayo dee wadnahaaga igu xidhay maxaa talaa oo hadda adaa wadnaha ku siiyo ma ku yeelaysaa way ku tiri haa buu yiri goosay tiri midii soo qaato islaantiibu wadnihii ka goostay inuu iska dhimatay wadnihii uu sido ayuu la soo ortay sidoo la ordayay ayuu kufay wadnihii halkaas oo kale ku dhacay wadnihii baa loo yiri hooyo wax ma ku gaadheen kayo boorkiis ka tuyo gabadhii buu iga qabo waa kan waxa tawaarad naga tag ilaa ma calahay ninka hooyadii wadnihii hooyadii sitaa de waaye gabadha yeelaysaa halkii hooyadiina ku seegay tii kalena ku seegay marka islaantu ka hadli mayso hunguri iyo halka wax la mariyo Allah qoray dadku wixii la hayaa la wadaaga waxay ka hadlaysaa qalbigan wadna hilbahan kala maqan ee nusna iyada yahay nuski kalena ka maqan yahay ayaa nuskan iyada qalbigan nuskan ku yaala nuski ka maqna raadinaya hilba kala maqan weeyo istoorayo lama aamusin karo inay soo horjoogsadaan iyo ilwaadsiga iyo ku ildoogsiga inta uu baaba dawo ah guri ugu dudi mayso kabayguna kuma salaysna ila aragtun baa dawo inta uu kaliya tabeedna sidan ay u bilowday waa boqol baydo hadii inta hore sida loo sharxo malayn maayo inay faahfaahin u baahan tahay dadkana kulli waxba loo hambeeyaa oo dadkuna qaybtiisa uu iska leeyahay wayna ka caawin ka sheekeeyay baasha la wadaago aan yiraahdo aadna aadabeeto furfuratid intani waa caynkan hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhixyaal anigu hunguri baa u tudimaayo ta Allah qorado ummadu dhaqan bay u leedahay wax wada cunita oo hidihiisa guud wixii la hayaa dhixyaal laakiin maxaan ka hadlayaa xaqiyo halbuuxintiisa habboonkiyo waalidtiisa hilbiyo ku arooridooda sidoo uga hawl yaraysto halmaan laga yeeli maayo nimaad dhashay kuma dhalin wuxuu qoraya waan ku ilaawi inaad ama yaani waxaan cudurdaan noqonay buu inuu ku maqnaa ayuu sheegaya iyaduna waa tan seexan weyday ee waxba culi weyday isagana dhayal bay la tahay marka taan ka hadlaya waa tan waa mid culuso waa xaq waalid leeyahay oo xaq ilaahay marka laga yimaado ka labaada xaqiyo halbuuxintiisa habboonkiyo waalidtiisa hilbiyo ku arooridooda sidoo uga hawl yaraysto halmaan laga yeeli maayo hawiyo tumashay dhashay halku ku maqraabay sheegaysa ama gabadha kale ha noqoto ama jaad ha noqoto ama wax ka balwadiisii uu ku maqnaa ayay marka abhiiraysaa hawiyo tumashay dhashayda kada gacan haadskaaga ha iga yeeran ubadkayga hooyada hadlaysa marka hooyo dhan baa hadlaysa sida ku banaan ee xaaladaas haysato oo dhan ayaa ka baygani ka soo jeeda ma hooyada run ahaa mid kasta oo xaaladaas haysato oo la ubadkeedii sida ay uga farabaxeen taasa way ku jirtaa barbaar hana qaad ku leexday duciya habar qaadan waaye eriya heegu noqdaa haraysa dhulaan aqooni hoygii maran wiilashiisa haween dumar baa ka sheegta hablaha kacay baa u yeedha haldhaa jecel baa u qaybsan inaan lagu rogmadayo xaabo iyo dhuxul iyo caano iyo tan lagu soo koriyay ama inanba oo inaan cidla ka helo iskala dhaqaaqay ama inaan iskala dhaqaaqday oo gurigii ay iftiinkiya ilaa iska noqon lahaayeen madow yahay oo qofkii ay ka farxin lahaayeen murugaysan yahay bal hada ka war ayuba sidaan u hadlayo hadalkan marka waxay leedahay wali qof la koriyay oo markuu loo dhameeyay barbaar hanaqaad ku leexday
iska dhaqaaqay duciya habar qaada waay isku qaada waay hooyadii ama aabihi ama labadaba iyo ducadooda intaas wax walba ka doorbidi waay ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaan qoon waa cir ku daaya meel garanay oo qofka gabadha ay uu de halka ku ay isku shitaanay gogasha quruxda badan u dhigtay waxa dil la weydiinaa ninkan ku soo galay kula jooga maxaa xirsadee mooyi waa mid hadda ugu fiicnaa xirsa waa mid ilaahay soo sakhiray hadii kala xirsa waa mid meelaha ka yimid oo jiriyaysi wuxuu yahay badii aan garanay hadda eegata waxa lagu abaal marinayo qofku marka uu wadada ka leexdo islaanta hooyana maxay sameeyay leedahay ma aabana de salaadu tukada gacmuhu kor u taagi lahaa oo markaas kalgacal gali lahaa markuu eegaba qaybkiibu ugu faani lahaa markaas uu ciil beeli lahaa halkuu u dhalay buu iskaga gufayn lahaa intana isagana badbaado adduunka badbaado u noqon lahay tabeedna maxay tiri inaan hadlo maan jeclaysan bal hadda afeefta inaan hadlo maan jeclaysan baxanaanana maan hor joogsan hubsiinana maan ilaawin hoggeediya xaajadayda dareenka haloosigiisa hugiisa inaan ka qaado hayaan ka fogaaday baa leh yani iska hadli maayo fudayd hadli maayo hubsiina la'aan iga hadlin mayso laakiin hayaan ka fogaaday iyo ubadkaa iska dhaqaaqay ayaa inaan hadlo igu khasbay oo dadku maqlaan markan cid la hiil ka waayay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayay sheego ama calaacalkeeda cidla aan ilaahay igu qaban markan cid iga hiilisa ka waayay aniga aqal madow noqotay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayay sheego waxaan isiri dadka gaarsii hal lagula maqlo oo colaadoodu cadowgoodu habbato haantii luulatay dhageyso waa cid ku saban qabta ama ninka jaadka ka iibinaya noqdo ama gabadha hadii ay ka dhigo xogaagiisa de u hadhay ha noqotee haantii luulatay dhageyso hoobaanta agtaada taala hadhiinadu baadi weeye hashii korisa u ciilan tabeedna waxay xusuusatay waalidku waa laba midun marka uu intiisa guto in abaalkii la celiyo oo uu marka ilaawo dhibtii iyo in la gudi waayo ay hor timaado wixii uu kula soo maray tabeedna imika waxa hor timi tacabkii ubadka ka soo maray tabeedna waa tan waxay tiri qofaad halab saaridiisa daryeelka horseedadiisa dadaalada heesihiisa habeenna ka seexan weyday ku meel maray heegantaada markuu hagar ku baneeyo daraarku haleeli waayo hortaada waxa yimaada sidaad ugu heelanayde haraadiyo waa kalkiisa waa xiladaydi aad guri lahayd hilaac baxayo dhageyso wuxuu isagii u yahay iyadoo haraadan hilaac meel halkaas wacda ka hayaan gaari karayn hilaac iyo waa kalkiisa haraadiyo waa kalkiisa hilaac baxayo dhageyso siday tala kaaga hoostay calooshu intay ku hoysay hiyigu ku baxnaaninayay horaadka intaad jaqaysay dhabtaydu intay ku haysay intaad huwanay taftayda hobayda intaan dusha kuugu heesay intaan hanad kuugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dartaa u hoggaansanaaday hadhuubbada aan ku siiyey habniin adigoo ku diiday intaan hamba kuu daboolay hamuun iyo gaajo qaatay adoo haqabeel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashay hareerahaaga hunga ay xusuusinaysa hayaydana meel shishaale hilowga nafta aloosan ay kalgacal bay haya boholyow hilowga nafta aloosan ka shaahinqanaysa goorba waa qalbigiiye hanka ay waraysanaya hankii ujeedadan ku dhalayaan ku haweenidaan ku hanweynaa ee aan ku hongoobay wax weydiinaysa hanka ay waraysanaya talow hebel mee ku foogan mee hebel aniga hirashaa isweynay higsiga nolosha adkaaday adduun iyo haybsigiisa hangoolli'idaan ku daayey waxaan ku hagaagi waayey dhankaad ku hagaagsanayde adoo ka hanweyn xaggayga qofkuugu hanweyn dantiisa ciddaad ku hadlaysay mooyi waa marka ay gurigii ay ku dhasheen iyo uskagii ay ku reebeen ka hawoodaane ay jeermiska iyo waxaa sheegaane ay gogol cadoo nadiifa ay doontaan ee wasakdoodii ay diidaan
halkii lagu meeyay wasaqdo ilaa hararadan iyo gurigan iyo aqalkan iyo darbiyadan waxa wasaqda ku taala waa tiisi waa saxaradiisa siinkiisi weey ya markaasay imika waxa leedahay adoo ka hanweyn xaqayga qof kuugu hanweyn dantiisa anuu baadee ana dantayda kuugu hanweyn oo ku dhalay adigu daliga malida ana dan kaale cid adigu halaysay teemoye halyeynimadaada sheelan habowgiya dhiirintiisa ayaan halis ku tusayne intaan kugu hawla daalay intaan kugu hooda sheegtay intaan hebla kuugu faanay hilaado fog bay lahayde inaan hafarkaaga qaato sidaad ku heshaa daaweyne adiga habigaaga mooy waar inaan uunbay dhashay sidii islaantii aan ka sheekaynay inaan uunbay dhashay kuma dhaline waar ujeedaan kuu dhalay oo kuugu tabcay oo kuugu soo jeeday oo ku xambaarayay oo haddii ilaahay ka dhigo kuugu heesayay ta inaan hafarkaaga qaato inaan uunbay dhashay oo hafara inta ila dalbadu ila intaas quran noqoto ilaa habaare deeyeli maaye sida taa go'aanka ku qaadatay adiga habigaaga mooyde waa adiga iyo garaadkaaga ay taa adiga iyo garaadkaaga weey haddana hooyadu bal hada docda kale aynu iska taagno ninkii gooyay ee inta ka soo martay ee aynu ka sheekaynay haddana waa tan aakhirka habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay xaqayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo huqbaasi ku raadinaysa waatan hooyadii waxa tir habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay haddana inaad rag ugu horeyso ayuuman haddana jeclay hooyo mooye citaad oran kartaana walaalay jirin abuhu waa dayriyaaye intaas abka cilbeel ka dhigtay ninkii odayga ahaa ee ogeyd cid ahaantiisii kululata haanti iyo tay u tolatay halka taalo hadii ay ka dhigo maaragtay gidaaday way gidaaday baa leedahay haantii habaaska inaad cantuugto adoo hanadan ka doortay xaqayga hibaan ku saaray xaqayga fasax baad ka tahay xaqayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo oo kan de ku oran maayo laakiin kan iyadu ma xukunto anigu ku habaari maayo huqbaasi ku raadinaysa qalbiga soo boodaya ayuun baan jirin meelaad ka gashaa oo ku daba socda xaq baa ku daba socda weeye daqiiqad kasta halis buu wallahi ku sugan yahay qofka taa la dhaqaaqa qasaman billahi qofkaasi waalidka sida uga dhaqaaqa xaq ee gudi waaya daqiiqad kasta meel kasta marayo halis buu ku sugan yahay inuu dhulku la go'o hawaala aduun rabba og dadkuna kala hooda weeye hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow anuba hooyada hoos iyo sare tii ku raacda